ninkii ugu horreeyay oo ahaa arday Soomaali ah oo indhoolo ah ayaa waxa uu ka qalin jabiyay jaamacad ku taala dalka Suudaan isagoo qaatay shahaadada heerka masterka. faafahinta warkan waxaa dalka Suudaan inooga soo diray wariyaheena Fiidow Maxamuud Fiidow. Maxamed Ahmed Maxamuud oo dadka qaarkoodna u yaqaanaan Maxamed Indhool waxa ku dhashay indhoolanimada hasta yeeshee waxa uu istaagay sidii dadka kale uu la mid noqon lahaa waliba dhanka waxbarashada. Maxamed waxa uu baabularka ka soo qaatay magaalada Muqdisho ee dalka hooyo taasoo ay dadka qaarkood la yaabanayeen sida qof indhoolo la'aan ah uu jaamacad u dhiganayo. hasta yeeshee taasi waxa ka sii darneed markii uu hamiyey in master oo baabular ka sareysa uu dibadda u doonto si aqoontiisa u sii kordhiyo. jaamacaddii codsiga u gudbisay xitaa way ka cadajiitay iyadoo islahayd qof indhool ah wax ma baran karo marka laga reebo meelaha jaamacadaha indhoolayaasha loogu talagalay maahe oo ay ula jeedeen inuusan dhigi karin arday indha qabta. laakiin markii dambe way ogolaatay waxa uu noqday ama jaamacadda uga baxay darajada masterta imtiyaaz oo ah kaalinta koowaad ee jaamacadda taasoo ay yartahay dadka ku qalin jabiyahay. Maxamed waxa uu jaamacadda u soo xaadiri jiray iyo casharadiisaba si caadi ah inkastoo marka uu doonayo inuu cashirka dib ugu ceshado oo qof asxaabtiisa ka mid ah ka codsanayay in uu akhriyo isagana waa xifdin jiray. imtixaanaadka marka uu galayana waxa loo qaban jiray macallin oo akhriyo su'aalaha warqadda imtixaanka ku qoran isagana waa uu ka jawaabi jiray isla macallinka ayaana u qori jiray mar labaad jawaabta uu afkiisa ka maqlay. maanta waxa uu noqday inta la og yahay ninkii ugu horreeyay Soomaaliyeed ee indhool ah oo qaata darajada master degree. dareenkiisa ayuu uga warramay Maxamed markii maanta uu maqlay darajadiisa kaalinta koowaad inuu ka galay jaamacadda. bismillaahir rahmaanir rahiim. maanta oo ah maalin axad ah 21 bisha Dhulqacda sanadka 1433 waafaqtana 7 bisha tobnaad sanadka 2012 waxaa farxad weyn ah inaan ka qalin jabiyo oo aan ka qaato darajada masterka jaamacadda Afriqiya Caalamiya qaybteeda markaska cilmi baarista Afrika. aad ayaan ugu faraxsanahay aad ayaan ugu mahadcelinayaa dadkii igala soo qayb galay ee dhalinyarada ee asxaabtayda wiilal iyo gabdhaba. waxaan idin leeyahay Allah ku kordhiyo miisaanka xasanaadkiina macnaha talaabadii aad soo qaadeen. aadna waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan asxaabtayda oo dhan. waxaan halkan ka salaamayaa inta taqaan oo dhan telefishinka qaranka iyo wariyaashiisana waan u mahadcelinayaa. waxa kale oo farxad weyn ah inaan ahay jaamacadda Afriqiya Caalamiya qofkii ugu horreeyay in dhala oo ka qaata darajada masterka gaar ahaan darajada masterka Soomaali anaa horta ugu horreeyay qof in dhala oo jaamacadda ka qaata guud ahaanna qof in dhala oo dhan ee isiisa aniga ugu horreeyay taasna Ilaahay mahadiis aad ayaan ugu faraxsanahay. waxa kale oo uga mahadcelinayaa taas madaxda xaruntan iyo dhammaan saaxiibadii garab istaagay dhalinyarada Soomaaliyeed aad ayaan ugu mahadcelinayaa. waxa laga yaabaa Maxamed inuusan waxyaabo fara badan u arkin hase yeeshee waxa la oran karaa maanta kumanaan iyo malaayiin indho qabta ayuu ka cilmi badan yahay. waxaana rajaynayaa Maxamed Indhool in cilmigiisa dadka uga faa'iideeyo oo noqdo macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalkeena hooyo ee Soomaaliya. dadaala waa u gaara xaj Cabaas ama oo dhaafi kara. Maxamed Ahmed Maxamuud waa sheekh indhool ah oo darajada masterka markii ugu horeysay Soomaaliya ka qaatay. waxa la oran karaa qofka marka uu hamiyo kuma xirna oo kaliya inuu lixdiisa lixad qabo hase yeeshee isaga oo go'aan ku gaara inuu heerkiisa gaara waxa uu noqon karaa maanta sida uu gaaray Maxamed Fiidow Maxamuud Fiidow kiisiga qaranka Soomaaliya al Khartoum Suudaan.